بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan maanta inta u fadhiyaa inaan ka u jawaabo shir jaraa'id oo shalay la qabtay oo uu qabtay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Dr. Aweys Sheekh Cabdullaahi iyo Marwo Caday Xaaji Macow arintaas oo been abuur laga sameeyay oo ku saabsan guryo dhaxal ah oo dhaxaltooyo ah oo la yiri dad haystay. waxaan rabaa inaan idaacada u sheego dadweynahana u sheego in Marwo Caday Xaaji Macow ay tahay xaaska aabahay oo ka geeriyooday ay tahay islaan eedadeeya marna aayadeeya xoolahana ay ku dacwoonayso ay tahay xoolo dhaxal ah dhaxaltooyadii reer Cadami. aniga waxaa la yiraahaa Baarliin Maxamed Cali ina Cadamiyaan ahay. Cadami nin weyn oo la yaqaan waa magaalada Xamar laga yaqaanay, nin generaal oo ahaa, nin ciidamada booliska ka tirsan oo ahaa, nin wakaaladaha dhismaha wadankaas shaqo badan ka qabtay, qayb weyn ka qaato ahaa. waxaa marka nasiib darro ah oo calool xumo maanta meeshaan aan fadhiyo, meelaan ku talagalay ma ahan inaan soo fariisto, meelaan ku faraxsanaa inaan soo fariisto ma ahan, meel aan jeclaysanahayna ma ahan inaan fadhiyo oo ka soo jeediyo sababtoo ah in magaca aabahay iyo sumcadiisa meel fagaare la keeno, dhibaatada qoyska in aan fagaare keeno inay foolxumo tahay ee ceeb tahay oo wax sharafna ahayn aan aaminsanahay. laakiin haddana waxaa danta igu qasabtay inaan imaado sababtoo ah been abuurka iyo warxumo tashiilka oo isdaba socda awgeed. saas awgeed waxay igu qasabtay maanta inaan meeshaan soo fariisto. Caday Xaaji Macow eedaday waaye, aabahay ka dhintay. xoolaha ee meel walba uga dacwoonaysa ay leedahay waa la iga haystaa. xoolo laga haysta ma ahan. dad qoys aan nahay, dad waxaan nahay wiil iyo waaridkiisa ah. waa la hadalnay, sulxaan raadinay, eedanimo iyo waaridnimo u raadinay, intiba waa diiday. waxaan rabaa marka inaan dadweynaha u sheego, dawladda dad alla dadka ay qusayso inaan u sheego arrintii shalay laga soo daayay TV-yada inay been tahay. gurigaas waa guri dhaxala, qof ka haystay male. guriga annagaa ilaalinaynay 1996kii maxkamadda oo Cali Dheere oo haystay laga dacweeyay, anigaa imid oo ka hadlay ilaa iyo markaas ilaa iyo haddana guryaha annagaa ilaalinayna oo hayna reer Cadami haddaan nahay. xaqay leedahay, waariday noo tahay, xushmaday nagu leedahay, eedadayn waaye, cis iyo mudnaanay nagu leedahay. laakiin intiba waa nala garan weysay. maxkamadda ayadaana geysay, ayadaana soo dacweysay. shalayna hadda waa ujeedaa oohinta orgiga ka weynaa la yiri. shareecada islaamka marka waxay qabtaa qodobka 58aad iyo 59aad oo suuratu nisaa waxay qoraysaa waxa dhaxaltooyada in shareecada islaamka lagu qaado. shareecada islaamka iyo habkii oo loo qaadi lahaa hal aada oo ku saabsanaa dacwadda sidii loo qaadi lahaa labadaba aayadda oo suuratu nisaa ay sheegayso. marka waxa meeshaas ka muuqato shareecadii islaamka oo ka weyneed wax kasta in aysan rabin inay u hoggaansato maxkamadda ay u ordayso. maxkamadda maxaa yaala marka? maxkamadda aniga ma generaal saaraynayo, kulli jamac ma ka dhigaayi, laakiin maxkamadda dad fiicanna waa joogaan, dad maxkamadda gudoomiyaha gobolka oo kalena waa joogaa oo inta meel fagaare yimid shaqadiisa waxaan ahayn ku dhaqaaqay shalay soo fariista TV hortiisa asagoo hore u sameeyay labadan warqad oo cadaynaysa oo u dhaxaysa maalinna wuxuu sameeyay isla bil gudaheeda oo bishii 2 Febraayo 5teedii midaana oo leeyahay fulin joojin, midaana oo leeyahay fulin ha lagu sameeyo. arrin weli maxkamadeeda aysan dhamaanin oo racfaankii iyo maxkamaddii sare weli aysan ka gudbin oo annaga xaq aan u leenahay inaan isku difaacno. bal adinka ninka 20 maxkamad jooga oo mas'uula oo 20 maalmood gudaheeda 2 warqadood soo saaray oo isla bishii mas'uuliyadda oo qaadi kara aan rabaa inaan ogaado. waxaan rabnaa dawladda inaan u sheegno inay tilaabo dadkaas ka qaado. dad fiican maxkamadda waa joogaan, laakiin dadka qaaska ah oo ma aragtay danta qaaska ka lahaa oo asaga danaysanaya dacwaddaas si qaasa u danaysanayo in dawladda ay dadka ka qabato. dawladda ayadaa ugu sarreysa, ayadaa xaakima, waa inay dadka ka qabataa. mas'uul
oo meel inta soo istaagay oo dhahayo qofkii inta la soo fariista dhahayo oo maxkamadda bal shaqadii loo dirsado oo maxkamadda iyo uga soo tagay aawo shaqadiisii iyo waajibaadkii ka saarnaa taasaa isweydiisa ah marka mushkilada ugu weyn oo haddana taagan waxaa waaye cadami oo la yaqaano jenaraal cadami allah u naxariisto jannada allah ka waraabiyo maanta magaciisa inaa meel fagaara ka sheegana ceeb igu too aabbahay oo xushmad iyo cis iga mudan in magaciisa aan maanta ku sheega aabbaheen oo ma aragtay la igu qasbay qasab igu noqotay in la dhaho guri ma leh hanti ma leh hal guri kama dhiman xoolahoo dhan cadday xaaji macoo waa iska leh inay kulli eeddaday sheegato ceeb waaye eedda wax laga xishoodo waaye wax foolxumo ah waaye annaga waxna kuuma diidanin laakiin shareecada islaamka see qabtaan rabnaa xadiiska wuxuu dhahaa oo nebiga oo sii fasiraya qodobka 3 qofood 3 goor marna waa laba goorna waa ahlu naar ninka xaakimka marna jannu galaa labada oo ahlu naarka waxa waa ninka sharciga isagoo yaqaan gudbaaya oo xad gudbay ninka isagoo sharciga aqoonin haddana ku amal falanaya marka ninka inta sharciga yaqaano haddana ag maraayo oo xaakimka ah oo shareecada islaamka aanan sameynaynin waa in wadanka laga qabtaa waa in shacabka laga qabtaa shareecada islaamka dhaxalka waa la yaqaanaa dhaxalka laba mid in dhaxalkii shareecada islaamka sida qoyska waa arrin qoys waa arrin family in lagu qaado oo meesha furidda iyo guurka shareecada islaamka taasay la mid tahay aayad quraana waay ilaaha soo dejiyay ilaahay meeshaas ku xakameeyay wuu kala saaray sida lagu qaybsado haddii maxkamad la tagaayane qoysaan nahay waa in waraaqaha iyo dukumentiga baaris loo diraa baaris marka aan leenahayna baaris sharciyeysan baaris oo dawladda hoos imaata non private ma aha nin private ah in loo diro warqado oo la yiraaho soo hubi oo dawladda ka tirsaneen oo ganacsade ah oo suuq bakaaro joogo oo ma aragta asaga sidoo rabo ugu sarrifanayo in la geeyo ma ahan marka waxaan rabaa inaan dadku u sheego dalladda culamaa diinta aan u sheego arrintan dhaxalka way soo noqnoqotay waxaan jeclaanayn culamaa diinta inay arrimaha dhaxalka ayaga ee faragashtaan ee wax ka qabtaan kow dawladda dadka baabi'inaya oo sumcadda dawladda ku dheelaayo fagaaro inta yimaado soo istaaga dhahayo sharciyaan fulinay oo qalada oo leeyahay dadaan guri ka saarnay dadka annaga waay annaga qoysaan nahay dad wax qabsanayna ma nihin dad wax diidana ma nihin marka war xumo tashiilka oo beenta in la joojiyo teeda kale waxaan ka digaynaa dadka raba guryahaas inay gataan oo eedaday ay la wareegaysa caddeey inay ka digtoonaadaan guryahaas dhaxal waaye maanta iyo maalin dambe iyo mar kastaba waa laysdaba taagnaanaa howl dhammaanaysa ma ahan in laga digtoonaado aan ka codsanayaa reer cadami annaka waa wada joognaa gabadhaan i garab fadhido walaashay waaye baariis cadamiya iyadana la yiraahaa meesha waa wada joognaa marka waxaan ka codsanaynaa dawladda iyo mas-uuliyiinta dawladda iyo dadka ay hoos imaata maxkamadda in arrintaas loo foojignaado loona dhabagalo wixii laga qaban kana laga qabto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu